إنك أوباهن دينت إسلام كان إنك أوباهن كلونك نرشي سيلهاي وحو دحقلي وبيها دحدو دويان هدو بيها كدح بحو لمنيا بني آدم كان عزقوغ شرفتو آخرتو أدويدو ماشي كو هاقاقي سيلهاي وحو كيالي والدين هذا دين تا إسلام كدتكو أي كدح بحانا ولمنيا marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukana innaka u baahan diinta inaan maqalo oo isku baraarujino oo ka wada hadallo innaka u baahan rasuulkeena udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mas'uud radiyallahu anhu ayuu ku yiri quraanka dusheeda ku akhri wa nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya quraanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdullaahi ibn mas'uud radiyallahu anhu wuxuu yiri aqra'u calayka wa calayka unzil ya rasuul allah maadaan dushaada quraanka ku akhriya quraanku aduuba kugu soo degay waxau nabigeenu calayhi salaatu wassalaam ugu jawaabay inni uhibbu an asma'ahu min ghayri quraanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhageystay dusheeda ku akhribu nabigu calayhi salaatu wassalaam quraankuna waa wacdiga ilaahay waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala oo khalqigiisa u jeediyay weeyaan hadii quraanka dushaada lagu akhriyo ama quraanka adigoo aad akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aad maqasho waxaad ogaataa quraanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaag hada balaag linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu وليذكر أولو الألباب هذا بيان للناس قرآنك هو بيان وموعظة marka quraanka akhrisanaysid ama quraanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay oo khalqiga u jeediyay ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nabi maxamed calayhi salaatu waxa ugu jawaabay ardaygiisii inni uhibbu an asma'ahu min ghayri waxaan jecelahay quraanka dadka kale inaan ka dhageysto ka maqlay dusheeda ku akhribu nabigu calayhi salaatu wassalaam faqaratu calayhi suurata an-nisaa suuradaas dushiisa ku akhriyay buu nabiga dushiisa ilaa laga gaadho aayadaas fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida marka aayad quraan oo nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam dushiisa lagu joojiyay ayaa nabi maxamed uu la ilmay fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keeno iyada iyo nabigeedii oo maraga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aad ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nabigeenu calayhi salaatu wassalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suurat lbaqara iyo ala cimraan iyo suurat الnisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada ya rasuula allah yaa rasuul allah maxaa sida naftaada aad ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaa buu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabda shakuura
miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaan ee jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtani waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa-idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqo la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanaayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri banaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atermidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yihi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa markaa haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay lamid yihiin buu yihi meesha laga dhintaa laga noolaada ma aha jirhkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanayay aqaladiisa salaada faraa-idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yihi yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay deedna markaabuu nebigu ku yihi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi awaakhira suuratu ali cimraan soo ma ahayn awaakhir suuratu ali cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toole yihi aayadahaas aayaduhu maxay ka waramayaan markaas ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedilaya bal wax udhexeeya sheeg wax saddexaad ma jiraan waa habeen iyo maalin hadday habeentahay saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam hadday maalin ay tahayna saad maalinta u gudan lahayd aada noloshaada u gudan lahayd nebi maxamed baa kuu jideeyey
deedna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri deedna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan ilaahay bay xusayaan iyaka oo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila ilaahow cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahow xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba annaar ilaahow cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan 24 saacadood ee ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacadiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabbar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mise qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka warramayaa naba-u maa qablakum buu ka warramaya waxalli wixii inaga horreeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka warramayaa waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka warramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aada xukun aada dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyadda mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhan ba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid ee kaftan qur-aanku ee dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegiddiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado bariddiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujr ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana uu cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhaahda qur-aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur-aanka yidhahda war qur-aanka han raacno war shareecaddeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yidhi sal alla alay slam marka qur-aankaa ilaahayna siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay innaka nabigeena moxamed calayh salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyuu jibriilla ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantu adduunka yimiday malagii baa nebiga salaame calayhi asalaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaa soo dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imise nuur laba nuur lam yu'tahumaa nabiyun qablaka adiga hortaa nebi labadaa nuur ilaahay uu siiyey oo nasiib u yeeshayna ma jirin baa lagu yidhi
خواتم سورة البقرة وسورة الفاتحة لبدا عدود البقرة وقدم بيسا أما سورة البقرة أواخر كذا هي سورة الفاتحة واللبا آيات واللبا إلهي والنبي محمد وكسيي خزائنت عرشك هو سيدتها الله إنت الله فريب النبي قال له قصة صاري قرآن كريم كي ملائكته أي صودان أيا لقد دبكيني دانا مرقاسا بيت العز لدقي ملك أيا سيجارة إنتو النبي محمد وقيم دي لبدا أوكيني أو كله أبشر بنورين أوتيتهما بشار يسول لبا نور با إلهي يقوكا سودي بو أدقى اللي قصيي أدقى هرتا النبي النصيب ويشئين لسيين مجرين ولا بديه خواتم سورة البقرة يا سورة الفاتحة ويان حرف كمد إلهي باهد هذا إلهي باهد هذا حرف كمد إلهي كبوي دي ستد خير الدنيا خير آخرة واحد دون يسد إلا إلهي وكو أقبل دعاء والله وصياب اللي بيقولي كدو عيسو باهي ملهن أرباهي ملهن ملهن نبي باهي وان بوحنا سوما هذا ده باهي هذا ده وكان كدو عيسو حد مالك اللي عنده هو تاجي سنة كيف دور كم بجامعة هذا كسب بحيسة شهادة أن قوش اللجوس هو قليي إلهي كود وين ميسي أجو إلهي وحى إلهي هذا كود وانه سوى قرآن كاس وحى حاجة هذا اللجو كود بوله وقرآن كاس واحد الدنيا هذه آخرة هذا كوجو حاجة سوى قرآن كقرآن كرع قرآن كود ضد بكادق ضد حرف كم ده بالنبي قال له يري إلهي تبارك بلايا صوصعتا كدو عيسى سورة فاتحة إلهي كبري نول الشبه عريري كوكو نغطي سورة دا كبري إلهي كدو عيسى مراد بالله هي كدو عيسى أواخر سورة البقرة إلهي كويد الصباح هذا الباب كإلهي قرع عبادة هديتها أخلاق هديتها تربية أولاد هديتها سيدا مجتمع لولا دقمية هديتها سيدا قيس لولا دقمية هديتها قرآن كامل راعين يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتدبرون عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب قرآنك أفير سنجر موقتها مسكيت كالنبي قلنا عليه الصلاة والسلام وهابين سوق عليه ساعده الدنبه أمير إسقوة إلهي ببرياء مالك هدان سيحدان أبوي يدي حقي ومضي يقول هيد من ضيعي مسؤول إلى هذا الحد عبادتي سحبينك إلى السنة يبوها حبين هذا كمد وسوق لمساجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوارك ير شابة وقيام الليل كي أتاقن وقرآن كورو قادايا واستعجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعضي وحو إلهي لي إن عذاب ربك لواقع آيات دا عمر مركو مغلبان ليدي دولكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن بالمول مدة كدوبو حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون سدين لغما ورقبينه آيات دا قرآن كآية قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي نبي قوي مدي سقو أويا يا مالن يا أبا بكر ما أنت محل لو يساي شيك مرقا سوري نبي الله سورة دنا كوكو سو دكتي لبدا آيادو دي أدن بيساي قوي هنا يسبولي وحبك كميتك لبدا آيادو
faman yacmal mihqaala darati khayra yarahu waman yacmal mihqaala darati shara yarahu. mihqaala dara waa wax isha bini aadamku qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka uu heli doonaa baa ilaahay yidhi. intaa in la egoo dembi o shara qofka sameeyana aakhirada uu heli doonaa maaragtaane abaalkiisa uu heli doonaa. abi bakr sidiiq waxa uu leeyahay labadan aayadood ee suuradda ugu dambaysa waxba kamay tegin ba nebi allow, seen markaa ku badbaadaynaa? markaa buu nebigu uhi ya abaa bakr waladii nafsu muxamadi biyadihi, ilaahay baan ku dhaartay buu rasuulku yidhi, allaha nafta muxamedi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee, low lam tudnibuu haddii dembiba uusan iniga dhacaynin oo dad dembi ka dhacayo aanad ahaynba, ladahaba allaahu bikum, ilaahay intuu adduunyada iniga kaxeeyu ini qaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duul, wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dembi intuu dembi ka dhaco oo ay dembi sameeyaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dembigooga uu dhaafo, kuwaasaa ilaahay keenan lahaa buu rasuulku ku yidhi. cabsidii markay ka badatay ayaa nebigu xadiistan ku akrinayaa bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan. adduunyada dusheeda ka arkaan o dhan aakhiraday ka dhex arkeen iyagu. taabiciintii buu ahaa gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi. salafku habeenka ugu horeysay ee leylat zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo. qolka uu amrana amarkiisa way adeecaysaa, haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhoorsoonta way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso, wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi. marka labada ragcadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada, waa hadyigii salafka. waxay ka dhigan tahay haddeetoola adiga anaa kuu imaama, ana taacadda ilaahay iyo taacadda nebi maxamed baan kugu hogaamine, sidaas salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay daba joogsay ka dhigan tahay. marka salaada la tujiyo ayaa waxaa sunno ah halkaa fooda in la qabto. fooda ducadee lagu akrinaya allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa jubilat calayha, soo mahayn khayra maa jubilat calayh wa acuudu bika min shariha wa shari maa jubilat calayh. waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macneeg waa maxay? ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa, khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa, sharkeygana waan kaa magan galay, sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay. halkaa fooda maxaa loo qabanayaa? fooda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakirada qofka bini aadanka, xasuusta. waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada. haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar maa. wamaa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha. lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu. dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajidda ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay. 100 hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada, 100 hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam, 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam, 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam. laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa, way shanqadhi qalow 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 birba ka dhashan qadhi. uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla. lidaalika habeenka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunnaa. markaa ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say 2 rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay. innakana ka warrama habeenka caroosada la soo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa ayuu leeyahay war kuwan khayrkooga allaha badiye bay kaa soo baxaana soo saa maahide maa sha allah.
laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga Silat ibn Ushaym raxmatullaahi calayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahay oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kugu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu as-salihah soo nabigu ma odhan nolosha adduunyadu waa raaxo yar raaxada yar ee adduunyadana waxa helay buu nabigu yiri ninka ilaahay uu ku hagaajiyo gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan ha haddaba adu waa inaad noqotaa adoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay wuxuu keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhanna salaat al-leelki iyaduna aanan ulan aadaankii fajr ka dhacay oo ka baxay aqalkii ila masjid subaxdii ba haweenkii ba u yimid aroosadii bal waran waana suufiyo aanu jeedin dumar markaas ay ku tiri salaadii aan galay ba ka baxnay tiri aadaankii fajrka iska dahay in laysa salaame salaadii aan xiranay labadii rakacadood aadaanka fajrka naga bixiyay tiri isagii baa la qabsaday marka oo leeyahay warninkaagan khayr Allah ku siiye xal aroosada xaleetooda aad sida ugu gashay wuxuu yiri inninkaaga gardaran buu yiri eeg deena ilaahay xasuuso kalixaadka laga naaqusay eeg deena ilaahay xasuuso ka cad eeg deena ilaahay xasuuso ka madow eeg deena ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deena ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deena ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyay eeg deena ilaahay ku xasuuso ka bila ubadka laga dhigay eeg deena ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa baad ka dhaxarkaysaa ilaahay aayatiisa كم من البشر با إلهي أبور 4 فقرايا 4 أغنيايا 4 عافمات لغو ديقي 4 حنون لغو ابتليي 4 فقر لغو امتحامي 4 أولاد الله هجاجيي 4 أولاد لغبيي 4 وحبرشد الله فري 4 وحبرشد لغو أدكيي 4 إسلام نمدا إلهي كو قلديستي 4 قال نمدا إلهي u qadaro galnimo ku dhimanayaan dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn يا أركوه أقول لعق بدن ما الجامعيين تقول لعق بدن مسدتك عن جامعات بصوديجن أكيد جواب ده ذاتك محبس صوديجن بقول ده غلط بدن dan اللي يرى أرض يعني أركوه يوم مركب الشيخ جامعة دين وان دميني شهادوين كوان هاي سنة شغلنا ما هين dan اللي يرى هذا فكرة يبغى cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buu marka horeysaba Soomaaliya qabiil baa lagu halaagay markaasaan yiri diplomkan aqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh aqoonta baro lama diidan inaad wax barato inaad dhakhtar noqoto lama diidayo inaad injineer noqoto lama diidayo inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo laakiin aqoontuna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysay ogow habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nabigu sheegay 40 goor
ajashiisiina habeenkaas la qori maalintuu dhimanayo labiya dhidig midku ahaanayna habeenkaas la qori ahla naar iyo ahla janna midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ku salli rasuulku arsaaqadaadii habeenkaaba la qoray intay tahayna ilaahay waa ka qariyay intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaaba la qoray intaad jireysana waa laga qariyay bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kasto inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa asaga oo taariikhda uu dhimanayana halka ugu qoran tahay see noloshu noqon lahayd bal ka jawaaba oday baa inaan ku odhan lahaa adeer dee mabruuk waan maqlay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuke laakiin 2022 bisha 22 gu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la samayn lahaa bal ka warrama taariikhda dhimashada laga qariyay baa raxmadaba walow 100 sano kadib haddaan lagu qori lahayn inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaari murugba ku sii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu ajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanayso wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa halkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelatee noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa lagu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadi iyo aqoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi laba ninoo walaale ayay ahaayeen midna farsamo yaqaan buu ahaa midna masjidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tegi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa rasuulallah de aniga un baa soo tabcaya buu isaguna halkan masjidka un buu fadhiyaa wuxuu nebigu ugu jawaabay lacallaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nebigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinaya fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka masjidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada masjidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinayo macnaheedu weeyaan sidaas marka aqoonta ma radinayno waan baranaynaa aqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofka wax baranaya inuu marka horeysa u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana nin taajira oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor taalla xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kaamera baa u dul saaran halkaa buu kala socdaa si fiican hadalka u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yidhahdeen shaashadda inaad kolba mar eegay sideed dadkuna dhex soo socdaan wuxuu ihi waa shaqaalihii baan halkaa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yihi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yihi mar markii qaarkood sharmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameraagaa bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeydii baa i nabadgalaysa buu yihi ninka dadkaa muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maha inte muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto
midba mid sida ku yiri dadka maanta wax la aamini kara ma jiro buu kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu tayib shaqaalihiisi qof kamida ayaa maalin isagana meel lagu la kulmo markaas lagu yiri maalin baan service-ka kugu soo maray iyaad u shaqeysaa shirkadda ma ka shaqeeyaa imsa sana ka shaqeysaa 7 sano lacag muxuu inisiyaa inta maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma inta un baa waa inta oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yiraahdaa waa ni biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yiraahdeen iyakii shaqaalihi waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaas isagii iyaka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal warano ma fiicantaha shirkadii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad aan aaminaan weynay buu khalaas dadkii ammaano ma la buu waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagana inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iga jawaaba qofku inuu rusheego noqdo oo ballan buuxiye uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye ixsaan sameeye inuu noqdo ma dibloom buu u baahan yahay ma maqasha weli jaamacad la yidhi ninka ka soo baxa wuxuu noqonaya nin ammaano xaafida nin runsheege ah nin ballan buuxiye ah nin cadaalad sameeye ah ma maqasheen ma jirtaa jaamacad caynkaas ma jirto way jirtaa waa jaamacaddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab radia allahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aada u soo socdo faraska aada u soo eryanaya marka cumar bnu khadaab baa eego wuxuu yihi ninkaasi kolley annaku noo socdaayo joogsada buu yihi uu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aada u daalan oo aada u naxsan baa markaa cumar soo gaadhay cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryenayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna ma yihi buu yidhi waxaan ka imide buu yihi basra ayaan ka imida basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay bau dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yihi dabeedna abaa muusa alashcari baa intuu iqabtay buu iga jaray buu yihi xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaalada dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu yidhi markaa naftaydii 3 mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyakana aan ka mid noqday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaaba odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiife gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar
waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma hayde soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegayay mashruuc gaalow innakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeedhata ka warran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan melheblaayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro oo la odhan jiray balaayoy baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayoy soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muminku sheego muminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxaa oo dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war ma hay-ad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg muminku balaayada ma sheego abaa hurayra hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa lagu dhiiba ha ku cibaadaysatid laba habeene ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee maskiidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmaheedel waxma cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeelo ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu ka odhan doona abaa hureyra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya himin buu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayni way u yeedheen wuu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meeshaa u dhacday yaa abaa hureyra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib hakana qaadin buu camila dacaa ila llahi dacaa baa horeysa qum fa andir baa horeysa camila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horeysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebi baa adduunka imanaya risaalad baa loo soo dhiibayaa dacwad buu bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaasinteenna islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan la baraa waa raxmad ummadda oo masaajidda loogu yeedhaa waa raxmad ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeedhaa waa dadka dhisidoodii war haddii magaalada oo dhan wada fooqag laga wada dhigo oo wadooyinka o dhanna lanooga dhigo muraayado oo waddanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo oo dadkao dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan risqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan horoo marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horumarneed baan samaynay jaamacadihii baa batay khariijiintii baa badatay jaamiciyiintii baa batay huteeladii baa batay warshadihii baa batay laakiin dadkii amaano male run sheeg maaha amaano male run ma sheegayaan ballan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku damqani maayaan maan horu marnay mise waan hoos u dhacnay yali iga jawaaba waan hoos u dhacnay idan hadday aqaladeennii baadiyaha ay yihiin oon adhi iyo geel aan dhaqanayno oon beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad khayr badan dad run sheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhidhinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horou marnay ogaada horumarku maaha dhiska horou mara horumarku waa bini aadamka horou mara weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhowaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasiga wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintaan dhigaya tacliintan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaan samaynaya car nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen mid iga jawaaba war ma maqasheen nin madaxweyneha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya
ma dhacdaa inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culammada weeyaan iyo kiina inigu shar badan markaasay saxaabadu yidhahdeen ha markaa buu nebigu kiina inigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho khayrkiisa see khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri orniyo ilmahaygiibaa maanta ilmo yar oo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helulkhayr ah waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waayi maysaan waa nin la isfahmo waa nin cafis badan anigay beri arina dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey war ninkaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nebigu yihi ka kalena hee waa kae khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey haa ilaahay baad leedahay kaabay arrini kaa gashay miyaa haa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war ii raaca oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa unay la quman tahay garna ma gasho dadkii khayrka badnaa waxaa ka badanaya dadke kafadda miisaanka taariku salaaga xaggan haddii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan war kafadda tee culus taariku salaaga cuslaanaya soo ma kafadda khayr dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan leh maanta mujtamaceena ayaa ku badan meel